السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada asxaabta ku xidhan kanaalka nolol wanaag iyo inta nagu cusubba fadlan haddaad nagu cusub tahay marka hore subscribe dheh fiidiyogana sii share garee suu gaadho asxaabta ama dadka kale walaalahaya. waxaan halkan maanta inagu soo gudbinayaa barnaamijkeennii dhacdooyinka adduunka oo maalin baynu dhacdo isdul taagi jirnay. maanta waxaanu eegaynaa dhacdo aad iyo aad u falxum oo ka dhacday magaalada Kismaayo. dhacdadani waxa weeye wiil ama qof ilmo yar oo isagoo nool nolosha lagu aasay hooyadii iyo aabihii ayaa isqabtay ka bacdi ninkii ama odayga aabihii ayaa xanaaqay markaas ayuu ilmihii yara aasay. waa sida aynu ku daawan doono fiidiyogan ruuxaantii isagoo nool ayuu nolosha ku aasay waana wax laga naxo bal ila daawada horta. saa ujeedaan video aan kasoo gaaray Kismaayo waa nin cunugiisa asoo nool duugay. arrintan Kismaayo ka dhacday faanoole gaar ahaan nin inax ayaa isdagaalay. markay isdagaaleen ninkii sameeyey cunugtii yareed ayuu nolosha ku aasay. booliska ayaa xiray cunugtii waa la raadiyey kadib wuxuu soo sheegay ninkii asoo xiran in cunugtii meel uu ku aasay gurigiis ka mid ah. saa ujeedaan cunugtii waa la faagay meeshii uu ku aasay uu soo tilmaamay. kadib waxaa dhacday in mataqaanaa iyadoo meyd ah oo lasoo saaray. saa ujeedaan waa arrin yani weligeed aan ka dhicin Soomaaliya. haddii ka dhacdayna ay u gub tahay. ninkaas hadda wuu xiran yahay booliska ayaa gacanta ku haya. marka sida la sheegana ninka wuxuu isticmaalaa daraagis u isticmaalaa. waa meelo ku yaalo faanoole oo xoogtiya kaamo ku yaalo waaye. marka waa wax xun oo aad iyo aad u xun waaye oo mataqaana aan cambaareynayno mataqaana balka oo diinta islaamka aan ku lahayn wax yani raadiya waa kaasa ujeedaan nugti yareed. subxaanallah. marka xaquuq insaanka waa cambaareynaya barnaamijkan. saad ku daawateen muuqaalka waa muuqaal runtii naxdin leh. horta waxaan wax cusub maaha oo marka dhinac laga eego waqtigii jaahiliyada asxaabta dee waxaa la yidhi waxay necbaayeen dumarka ruwaberigii gaalada lahaa. sidaa daraaddeed cumar bin khadaab radiallahu canhu waata xadiiska lagu soo warinayay yacni la sheegay in isagoo oo madaxa ilmihiisa yar ama inantiisa yar timaha uga tumayso boorka isna godka u qodayo ku aasi. taas waqti jaahiliyaheed wax lala yaabo ma intaas waa lasoo dhaafay waana gaalaheed taasi. laakiin waqtigan la joogo waxaas Soomaali ka dhexdhacaya ruuxaantii waxa keeni karaa loola karaa iimaan la'aan iyo dad maan ramsiya aan lahayn. sidaa daraaddeed waxaa wanaagsan qofku inuu ku dadaalo suu markasta iimaankiisa uu xoojin lahaa xanaaqiisa iyo uu kontarool lahaa. waxyaabaha daraagiskana maanta waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu badan ee dadka dhibaatada u geysta sababtoo ah qofkii waa qof maskaxiisu doorsan tahay isma oga. saa daraaddeed waxyaabo badan ayuu ku dhici karaa. marka waxaa wanaagsan in waxaan laga fiirsado oo run ahaantii qofku ku dadaalo had iyo jeer suu iskaga ilaalin lahaa iimaankiisa oo xoojin lahaa. meel kastoo aad joogtaan waxaan iga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka subscribe garee muuqaalkana sii share garee. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.